السلام عليكم magacaygu waa Amiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xog ku saabsan jilaayada caanka ah ee reer Nigeria Emmanuela waa majaajiliste caruur ah kanaalka YouTube ee Mark Angel ayay share weyn la leedahay waxayna soo gudbiyaan iyada iyo maamulaheeda Mark Angel muuqaalo comedy ah ama shaactiro lacagta ay ka sameeyaan YouTube-ka waxay gaaraysaa lacag u dhaxaysa 10,000 ilaa iyo 160,000 oo dollarka Mareykanka ah wiliba bishii halka sanadii ay ka sameeyaan lacag u dhaxaysa 120,000 ilaa iyo 1.9 milyan oo dollarka Mareykanka ah sidoo kale waxay leedahay Emmanuela Facebook page waxaana ku xiran ku dhawaad 3.7 milyan oo followers ah Emmanuela waxay YouTube ku soo biirtay 28 August 2015 waliba ayadoo 5 jir ah waxayna soo jiidatay malaayiin oo qof oo muuqaaladeeda xiiseeya muuqaaladeeda ugu horeeyay wuxuu ahaa qaybtii 34aad oo cinwaankeedu ahaa Humes sidoo kale muuqaaladeeda kumanaan Soomaali ah ayaa xiiseeya waxayna jeclaadeen shactirada iyo sida ay dadka ugu qosliso Emmanuela waxay dhalatay sanada markay ahayd 22 July 2010 waxayna ku dhalatay Port Harcourt Nigeria oo qiyaas ahaan u jirta caasimada Abuja 579 kilomitir gaadiid ahaan Emmanuela ayaa guri weyn u dhistay aabaheed iyo hooyadeed waxayna tiri sidaan waxaan go'aansaday inaan guri u dhiso waalidkay sababtoo ah waxaan rabay inaan aabahay u gado gaari kale sida darteed adeerkay markaa ayaa i xasuusiyay in aan hooyaday ka ballan qaaday inaan guri u dhiso wuxuuna ii sheegay inaan lacagta ku iibin gaari balse inaan aruuriyo kadibna aan ku dhiso guri waxaa la xiriiray maamulahayga si uu dakhliga ii soo galo igu kala qeybiyo 4 qayb waxa ay aadaysaa dhanka agoonta qayb guriga ayaa lagu dhisayaa qayb qoyskayga ayaa la siinayaa qaybna keyd ahaan ayaan u dhigan doonaa hooyaday ma aysan ogeyn inaan guri u dhisayo markii aan furaha siiyay iyada iyo aabe ayaa ii dhoola cadeeyay waan jeclaystay dhoola cadeyntaas ay hooyo i siisay iyo aabe waligeyna ma hilmaami doono dhoola cadeyntaas dhismaha waxaan bilownay December 2019 sanad ku dhow ayuu nagu qaatay dhismaha gurigan iyadoo Emmanuela sii wada hadalkii ayay ku tiri hooyaday waa qof diin leh taas ayaana ku jeclahay tani ma ahan hadiyada kaliya ee aan siinayo qoyskayga qorshayaal kale ayaa jiro oo aan u haayo hooyo iyo aabe sida gaariga aan rabay inaan aabe u gado maanan iibin balse waan soo iibin doonaa balse taas aad baan aabahay ugu kadin doonaa